Guddiga dib u eegista dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay kulan la qaatay Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuduudaha iyo Federaaleynta dalka ayaa ku saabsanaa dib u eegista dastuurka iyo ballaarinta hannaanka federaaleynta dalka, waxayna iska xog wareysteen waxyaabihii u qabsoomay iyo sidoo kale qodobada haatan horyaalla. Guddiga ayaa soo bandhigay cilmi baaris ay ku sameeyeen habraaca xuduudaha dowlad goboleedyada, degmooyinka iyo soodhimaha ay Soomaaliya la wadaagto wadamada deriska la ah. Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuduudaha iyo Federaaleynta Khaliif Cabdikariin Maxamed ayaa sheegay in kulankan laga soo saaray habka ugu wanaagsan ee lagu samayn karo magacaabista degmo ama gobol, taasi oo ku saleysan tirabadnaanshaha dadka, dhaqaalaha, xuduudaha iyo afti dadweyne oo la qaado. Waxaa loo baahan yahay in la ogaado xuduudaha gobollada, degmooyinka iyo soodhimaha Soomaaliya ay la leedahay dalalka deriska la ah iyadoo lagu saleynayo dastuurka dalka, ayuu yiri Guddoomiye Khaliif. Guddoomiyaha Guddiga dib u eegista dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa ammaanay guddiga shaqada wanaagsan ee ay qabteen, isagoo sheegay inay soo akhrin doonaan qodobada baarista ay ku sameeyeen. Waa idinku ammaanaynaa shaqada wanaagsan ee aad qabateen, waana soo akhrin doonaa qodobada aad soo qorteen ee sidoo kale aad cilmi baaris ku samayseen. Haddii sidan mar walba laysku kaashado, waxay wax ku kordhinaysaa dhammaystirka dastuurka ku-meel gaarka, ayuu yidhi Cabdi Qaybdiid. Qorshaha dhammaystirka dastuurka ku-meel gaarka ayaa ah in lagu dhammaystiro inta ka harsan sanadkan gudihiisa, iyo sidoo kale in sanadka 2020 la qabto doorasho uu dalka Soomaaliya ka dhacdo.